والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كسو دواada بغداد أونلاين أكاديمي markale iyo cashiradeenii effective leadership skills waxaanu soo qaadanay ugu dambeeyay modelkii lixaad. waxaan insha Allah taala maanta qaadan doonaa haduu Ilaahay idmo modelkii toddobaad ayaan qaadan doonaa. modelka toddobaad wuxuu ku saabsan yahay barnaamij aad u muhiim ah qof walbana uu isweydiinayo hogaamiye maxaa loogu baahan yahay inuu xirfad ahaan u leeyahay. The skills of effective leadership ayaan baranaynaa haduu Ilaahay yiraahdo. yacni qofka hogaamiyaha waxtarka leh ama wax ku oolka ah ama hogaamiyaha saxda ah xirfadaha uu leeyahay ee lagu yaqaano maxay tahay. waa su'aal da'weyn oo runtii aad u muhiim ah inuu qofka isweydiina la rabo. tilmaanta koowaad ama skillska koowaad uu leeyahay waxa weeyaan communication skills. runtii aad iyo aad bay u muhiim tahay qofka inuu leeyahay communication skills. waayo hadduusan qofka siduu dadka ula communicate gareeya ama dadka uu ula hadlo ama hadal ugu qanciyo ama hadalkoodii u dhageysto uusan aqoonin, qofkaasi wixiisu waa kala dhiman yihiin. marka art of communication waa wax aad u muhiimsan. sidaa darteed qofka communicationka wax ugu muhiimsan waxa weeyaan baa la dhahaa inuu qofka noqdo qof marka hore isku daya inuu dadka kala dhageysto inta uusan isku dayin in asaga la dhageysto. wuxuu ka hormarinayaa inuu asaga marka hore dhageysto, baahida followerskiisa uu dhageysto, waxyaabaha ay danayaan uu dhageysto. sidaa darteed qofka kow waxaa la rabaa inuu noqdo communicationkiisa si uu noqdo communication sax ah, inuu dhegtiisi u raariciyo taageerayaashiisii, inuu aamuska badiyo, dhageysiga badiyo, iyaga iyo hadaladooda iyo waxa ka gooxaya uu dhageysto. waa runtii aad ay muhiim u tahay markuu iyaga la hadlayo inuu yahay qof u hadlaya si degan oo waadix ah oo la fahmi karo. haddii loo baahdo mararka qaarkood in sawiro wax lagu muujiyo sawiro ku muujin karo. muxuu ahaayey haddii loo baahdo in warka lagu soo celiyo ku soo celinayo oo dadkii u qeexayo ugu celinaya. haddii uu dhameeyo warkiisana dadkii weydiiyo su-aalo oo leh haye ma la fahmay, yaa ku soo celin karo, ma ila socotaan, oo la rabo inuu noqdo qof dadkii qancin kara. communicationka runtii waa wax ugu muhiimsan ee qofka uu ku gaari karo guusha asaasiga ah ama skillska number 1 oo qofka laga rabo inuu iska dhiso weeyaan. communicationka aad hadduu fiican yahay, haddaad qof mar walba xanaaqsan tahay, haddaad qof isla weyni laga dareemaya aad tahay, haddii aad tahay qof hadalkiiba aan dadka gaarsiin karin oo deeqsi aan ku deeqi karin, haddii aad tahay qof aaminsan in asaga un la dhageysto oo aanan marna diyaar u ahayn inuu dhageysto dadka kale asagu mas-uulka ka yahay, cilado fara badan ba halkaas ka jiro. marka leaderka waxaa la rabaa inuu noqdo qof diyaar u ah inuu dhageysto taageerayaashiisa, inuu noqdo qof hadal ku dherjin kara, inuu noqdo qof markii iyaga ay muxuu ahayey u baahan yihiin ka qancin karo waxyaabaha ama su-aalaha iyaga ay qabaan. marka qodobka koowaad waa communication, wax oo maanta aanan su-aal geli karin weeyaan inuu qofka leeyahay skillskaas communication skillska. qodobka labaad oo asigana aadku muhiimka waxaa weeyaan inuu leeyahay planning skills, qorsheyn inuu yaqaano, inuu wax qorsheyn karo. qorsheyntaasi qofku uu sameyn karo waxay noqon kartaa noocyo fara badan. yacni in howlaha la qabanaya iyo ahdaafta in la gaaro la rabo iyo qaabka in loo gaaro la rabo, inuu muxuu yahay qof oo qorsheyn kara inuu yahay. waxaa kale inuu qorsheyn kara la rabaa. sidoo kale haddii resourceska la isticmaalayay, haddii qalabkii ay tahay, haddii cilmigii aqoontii hadday tahay, haddii xirfadii loo baahna ay tahay, haddii muxuu ahay ay tahay si guud ahaana shaqaalihii shaqeynayay iyo qeybahoodii baahida looga baahnaa, inuu yahay qof fahmi kara oo qorsheyn kara inuu yahay waay. sidoo kale waxaa aad u muhiim ah si uu qof qorsheyn kara u noqdo inuu yahay qof gaari kara go-aamo, qof wax qiimeyn kara inuu yahay, qof qorshe qori kara inuu yahay, inuu qof qorshe fulin kara inuu yahay, ugu dambeyntiina qorshihii uu fuliyo qof qiimeyn kara inuu yahay. dhammaantood waa aad iyo aad ay muhiim u tahay. marka waa inuu planning wax ka yaqaanaa. planninga markuu wax ka yaqaana aan leenahay mar walba hogaamiyaha tafaasiisha qotaha dheer inuu yaqaano daruuri ma ahan.
laakiin si guud ahaana guidelines inuu bixin karaa ugu muhiimsan. tafaasiisha wuxuu u dayn doonaa dadka takhasuska u leh oo mas-uuliyadaas iska leh, laakiin asaga wuxuu xooga saari doonaa waxyaabaha waaweyn ee basiga ah oon laga maarmeynin. marka inuu faham ka haysto planninga runtii aaday muhiim u tahay, laakiin shardi maaha inuu noqdo qof planning khabiir ku ah sidaan horeyba u sheegnay, waayo qofka hogaamiyaha waxaa laga yaabaa inuusan qorshe fara badan aqoonin, laakiin xirfado fara badan ay ka buuxaan. marka muhiim jiddan inuu qofka wax un ka fahansan yahay qorsheynta, ugu yaraan ahdaafta inagaala rabo inay u caddahay oo si waadix ugu muuqato. brosesyada markaas kadib ha la kaashto cid allaala cidduu isleeyahay way kaa caawin kartaa. sidoo kale qodobka kaleo muhiimka waxaa weeye waa inuu yahay analytical skills, waa inuu leeyahay qof wax dhirin kara, waa inuu yahay qof wax analyze garayn kara, waa inuu yahay yacni markii ay qofka problems soo wajahaan, problemskaas soo wajahay sidii loo xalin lahaa inuu dhirin karo. mashruuc cusub markuu rabo inuu fuliyo inuu qof dhirin karo u yahay. dhirintaasi qofka uu sameynayo waxay in badan macnaha ka dhisaysaa inuu xog fara badan helo, inuu muxuu ahaayey waxyaabo badan oo challenges oo imaan lahaa horey ugu sii fikiro. marka qodob aada u muhiimsan weeyaan inuu qofka marka hore uu sii sameeyo analytical skills, waa inuu sii lahaada. aaday muhiim u tahay wax sii dhirin karaa oo wax allaal wixii lasoo sheegay wixii horey u dhacay iyo waxaada dhici doon kulli waa analyze garayn karo. qodobka kale oo isagana muhiimka waxaa weeyaan interpersonal skills, waa inuu leeyahay. qodobkaasi aada iyo aada buu muhiim u yahay. waa qaabka dadka loola macaamilo, dadka loo dhexgalo, dadka loo qanciyo, dadka loola sheekaysto inuu yaqaano runtii aaday muhiim u tahay qofka hogaamiyaha ah. waayo sababto ah qofkaasi waxaa laga rabaa inuu dadkaas kasbado. marka si uu kasbado kow waxyaabaha inuu interpersonal skills leeyahay waay inuu qof asaga isku kalsoon yahay oo naftiisa isku kalsoon, qofka akhlaaqiyaadka iyo waxyaabahaas mabaadi'da ku adag inuu yahay oo dadka ay ku ixtiraamaan, qofka oo xiriirka iyo wada shaqeynta ku fiican waa inuu yahay, qof markii feedback la siiyo feedback la siinayo ixtiraamayo qadarinayo oo dadkii warkooda dhageysanayo inuu yahay, qof oo body language ku fiican oo kale inuu yahay. muxuu ahaayey waxyaabahaas oo kale inuu qof dadka dhageysanayo oo warkooda inuu qiimeeyo dhageysanayo ah uu yahay, qof oo muxuu ahaay iskaashi iyo wada shaqeyn iyo halanbey in lagu shaqeeyo aaminsan oo fikri aan u xambaarsan inuu yahay, qof problemyada soo wajahaya maareyntooda iyo ka hortagoodii wax ka yaqaano inuu yahay. marka waa inuu yahay qof dadkii uu asaga la shaqeynayay isdhexgal la leh, muxuu ahaayey problemska dhacaya iyo sidii loo xalin lahaa iyo hawsha socotay siday u socon lahayd iyo tacaamulkiisi uu wanaagsan yahay. yani ereyga ugu muhiimsan waxaa weeyaan waa mucaamaladiisii qofkan inay tahay meesha ugu sareysa ee loo malayn kara inay gaarto weeyaan, si uu hogaamiye u noqdo oo dadkaasi inay ugu qancaan, ay u raacaan, ay u ixtiraamaan, ay u qadariyaan asaga iyo aragtiyooyinkiisii shaksiga ah. sidoo kale waxyaabaha muhiimka waxaa weeyaan waxaa kamid oo laga rabo skillska muhiimka ah evaluation and control skills inuu leeyahay waay. evaluation and control skills waa inuu leeyahay qofkani hogaamiyaha ah oo uu yahay qof qiimeyn kara waxyaabaha socda iyo qaabkay u socdaan, skillska loo baahnaa in lahay in kala fiirin karo. runtii aad muhiim u tahay. evaluationka waa wax imaanaya markii howl la qabta kadib imaanaya waay. macnaa wuxuu kaa caawinayaa inaad qiyaasi karto performancegii la rabay in la sameeyey iyo in kale, wixii in la gaaro la rabay in la gaaray in kale ayuu kaa caawinayaa. wuxuu kaa caawinayaa inaad ogaato inta aada u jirto wixii inaad gaarta aada rabtay. wuxuu kaa caawinayaa sidoo kale in aad fiirisid ood qiimeysid hawshan la qabtay, ma la wada qabtay, ma laga wada qeyb qaatay, qof walba mas-uuliyadiisa ma gutay, mase dad oo liitaa jiray. wuxuu kaa caawinayaa dadka shaqaadan qabtay ma ku qaracsanaayeen, ma ku faraxsanaayeen, ma ku raaxaysteen inaad ogaato ayuu macnaha kaa caawinayaa. sidoo kale wuxuu kaa caawinayaa dadkii shaqaynayay shaqadii si wada jir ah miyay u qabteen mase keli qof walba nafta ayay hawshan ku dhacday, natiijooyinkii la rabay oo dhan ayuu runtii inuu gaaray in kale uu iska hubinaya. marka runtii aaday muhiim u tahay qofka hogaamiyaha ah in uu tilmaantaasi uu lahaado qof wax qiimeyn kara inuu yahay,
qof oo hawsha socoto controli karo, la socon kara stebeska la maraya, in la wax qaldan yihiin, in wado sax lahayo, in kala fiirin kara waa inuu yahay. qodobkaas isagana waa asaasi ama skillska laga maarmaanku ka mid yahay. skillka ugu dambeeya ee runtii isagana muhiimka waxaa weeyaan effective teaching and coaching skills waa inuu yahay. yacni qofka hogaamiyaha ah waa macallin, qof inuu wax laga barto la rabo waaye, qof inuu tusaale noqdo laga rabo waaye, qof in lagu daydo la rabo waaye. sidaa darteed waa inuu yahay qof fursado abuuraya, tiimka u abuuraya fursado, baraya qaabkay xirfado cusub iyo aqoon cusub ay u gaari lahaayeen, ku caawinaya dadkaasi sidii ay u xalin lahaayeen problemska jiro, ku dhiirigelinaya sidii ay muxuu ahaayey horumar u sameyn lahaayeen oo tilaabooyin hore ugu qaadi lahaayeen, ku caawinaya sidii ay markaasi u gaari lahaayeen ahdaaftii la rabay oo in la gaaro ay qorshaha ahayd. sidoo kale wuxuu noqonayaa inuu qofku caawinaya inay go-aamo qaataan, iyaga laftooda ay is aaminaan, kalsooni isku qabaan, inay wax qaban karaan uu tuso, uu bara ayaa la rabaa. inuu kala taliyo waxyaaba ay u baahan yihiin in lagala taliyo, waxyaaba ay ku wareereen, waxyaabaha problemska kasoo wajahay, caqabadaha hortaagan, kulligood inuu kala taliyo oo asiga uu u noqdo la taliye ay u laabtaan markay problemska ay xallin waayaan. waxyaabaha dhibaatooyinka ay kasoo cawdaan inuu alternativeska loo baahan yahay uu hordhigo, uu yidhaahdaa waxyaabahan hadday idinka hor yimaadaan caqabadan sidaana looga gudbaa, tilaabadana lagu xijiyaa. runtii aada ayay muhiim u tahay inuu yahay qofkaani qof coaching ku shaqeynaya, yacni la talin ayuu siinayaa, hawsha ay qabanayaan si guud ahaan buu u hagayaa, iyagaa tafaasiishii wixii oo dhan galay. marka tilmaamahaas waa tilmaamaha ugu muhiimsan ee aan isniri wuxuu u baahan yahay qofka leadershipka leh. waxaana laga yaabaa inay tilmaamo kale oo idinka aad ogtihiin ay jiraan, waxaa laga yaabaa inay tilmaamo kale oo meel kale aad ka arki kartaan ay jiraan. marka waxaan usoo qaadanay inta ugu muhiimsaneed ee aan is lahaa waa tilaabooyinka daruuriga u ah in la helo, ama skillska daruuriga u ah in qofka hogaamiyaha u yeesho. laakiin waxaa suurtagal inay kuwa kale jiraan. aada ayaad u mahadsantihiin. xalaqadeeni ama modelkeeni 7 intaas ayaan kusoo gabagabaysanaynaa. intaan ku kulmi doono xalaqo kale mar kale waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Baghdad Online Academy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.